waxa uu muujiyay dareen kalgacal iyo muxibbo fara badan taasoo muddo soo jiitamaysay wiilkii qaxoontiga Siiriyaanka ah ee la qalgalay 72 jirkii hantideedu ahayd 60 milyan ee uu qabay jacaylka daran ugu horeyn muuqaalka like saar haddii ay tahay daawashadaadii koobaad fadlan channelka ku soo biir oo subscribe noo saar 27 jirkii kuuga ama si cunno kariya ahaa ee asal ahaan ka soo jeeday dalka Syria mashaakilka iyo marxaladaha adag ee ka socda dalkiisu ay ku kalifeen guud ahaan inuu ka hajiro dalkii uu asal ahaan ka soo jeeday isaga oo safar ku galay qaaradda Yurub gaar ahaan dalkan laga hodmin lagana tabcan hantida badan ee Hungary halkaas oo uu ka shaqo bilaabay magaalada caasimadda oo ah hudheel yar oo ku yaala oo uu ka sameeyay cunto waxa ay isbedeshay noloshiisu dhamaadkii 2018 markii meherada yar ee cuntada ka sameeyay uu ka cunteeyay wiil lagu magacaabo Jeevis macmiilkan ayaa ka duwanaa guud ahaan dadkii uu la kulmin jiray Khadir Amiin oo ah ninkan kariya ah ee asal ahaan ka soo jeeda Suuriyaanka waxa uu wareystay xog wareystay waxaanu weydiiyay su'aalo fara badan oo aanu kala kulmi jirin dadka cadaanka ee goobta imaada waxa uu is weydiiyay ninka sidan u wanaagsan halkuu ka yimid iyo asal ahaan halkuu ka soo jeedo waxa uu sheegay inuu asal ahaan ka soo jeedo dalka Paraguay waxa halka ka bilaabmay saaxiibtinimada Jeevis iyo Khadir Amiin waxaanay noqdeen saaxiibo si joogto ah madasha ugu wada sheekaystay xilliyada firaaqada isaguna waxa uu noqday mid joogteeya la macaamilka meheradii uu ka shaqeynayay wiilkan Suuriyaanka labadan wiil saaxiibtinimadoodu waxay soo dedejisay inuu guud ahaan ka kaxeeyo halkaas ama se guud ahaan badalka Hungary isagoo geeyay dalweynaha Spain oo ah meel uu hanti fara badan ku leeyahay guryo baabuur waxaana halka ku nool hooyadii Mola iyo walaashii oo daahan isaga hoos uga yar waxa uu halka u geeyay qaab saaxiibtinimo waxa uu siiyay shaqada uu siiyay oo ahayd inuu noqdo kariyaha reerkan maalqabeenka ah ee uu curadka u yahay saaxiibkii Jeevis si ay isagana ugu soo dhawaato wada sheekaysiga iyo isxog wareysiga saaxiibkiisan uu ka helay sheekooyinkiisa ama se uu xilliga warkay qof bashaasha tabiicadahan ay fahmi karaan jawiga maalmaha iyo ayaamu waxay soo guraan waxa uu ka mid noqday wiilkan Siiriyaanka iyo qoyska isagoo dhinaca ka shaqaale waxay aad isku barteen aadna isku dhaxgaleen xubnihii qoyska oo kala duwan sidoo uga soo helay wiilku sheekada iyo furfurnaanta wiilkan si lamida waxa ka heshay maamada waxay noqotay mid mar walba u dhawaatay sheekooyinkiisa isaguna sidaas si lamida waxa uu ka helay sida wanaagsan ee ka shafuran ee ay u soo dhaweeyeen qoyskan cadaanka ee asal ahaan ay aadka u kala fogyihiin aadna u kala duwan yihiin xitaa aanay ahayn isku diinta iyo wanaaga ay muujinayaan waxa uu isaga laftigiisu muujiyay markan dabacsanaan iyo kalgacayl waxa bilaabmay xiriir qarsoona oo cidina ogeyn marka laga reebo lamaanahan isku calmaday sida hoose balse kala xilliga ee kala maamadii guriga iyo wiilkii cunto kariya ahaa ee uu keenay wiilkeeda guriga xiriirku wuxuu qarsoonaadaba sanadii 2020 bishii 9 ayaa shaaca laga qaaday inta kadib waxa khilaaf xoog weyn ka dhex qarxay hooyada iyo labadeeda ciyaala buuq khilaafkani ugu dambeyn waxa uu gaaray markii lagu xalin kari waayay si hoose ilaa heer maxkamadeed ujeedkiisuna waxa uu ahaa inay iskugu jirtay hanti gaadhaysay 180 milyan oo ka dhintay labadan caruur aabahood oo aanay wali qaybsanin balse ay hooyadu maamuleysay intaasoo dhan waxay ku dacweynayeen maadaama ay hooyadu damacday inay nolol gaar ah dhisato inay hantida kala qaybsadaan oo qof waliba intiisa qaato ugu dambeyn waa loo kala qaybiyay qof walbana waxa uu qaatay 60 milyan maalintii koobaad ee uu dhacay nikaaxoodu waxa ay ku saahaday hanti gaadhaysa 19 milyan oo kamid ah hantideedii waxaanay kala hadhay 41 milyan oo kamid ah hantideeda wiilkani waa mid kamid ah qurba joogta Siiriyaanka ee milyaneerada maanta marka la eego hantida uu haysto waxa walahays ka dhigtay haddii aad samayso jacayl daacada waxaad wax ku helaysaa si daacada hanti magac iyo maal iyo maamuusba